هنا إذاعة القرآن الكريم، نحن معكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. محو ترى يدا 10 ديار صدق ما محي وجيده 10 دياري maxaan ka faa'iiday 10 diyaari waa marka horeysa waxa uu yahay waa furaha meesha u socoto ki meesha u socdo ay cadda marka 10 soo diyaartay wuxuu baa qaaminaya waqtiga hadii ka hadda meelan ku dhacaya 10 waa inuu baa qaamiya waqtiga uu tala galay meeqa saac la qaataa halkaas 4 daqiiqo ayna ku tala galaa 10 daqiiqo 10 iska furan kuwa la galay shaqadeedu waa kala habaysan tahay shaqa hebel midana ka horeysa tan ka horeysa waa kala habaysan waxa aan qabanayo waa kala aqaana balaankeeda kulli kalsooni baan leeyahay isku kalsoona macna wax soo diyaarsadanahay وغير ذلك ما دبيسو سؤالها اللي ويدينا كما بقيو واكو بل كو ربا معلم 10 مدة دغ جيري 10 soo diyaarsado kii sanadka hore buug sanadka hore haysta oo diyaartay ama kii ka horeeyay kan ku yimi 10 intaas ma ku filanta 10 diyaarinta bas maalin kasta waxay u baahan tahay ardadii ma aha xilligii ma aha waxba soo kordhaya 10 intaan mu ahana 20 sano ka hor ka dhigaysa ma dhigaysa 10 sano ka hor ka dhigaysa ma dhigaysa waxa u baahan inaan wax cusub la jaan qaado oo ardada la jaan qaadaan wixii cusub soo kordha ay maadada ku saabsan marka leesankeyga ima dhibaysa marka su'aalo in la weydiiyo internet laga weydiiyo meelka laga weydiiyo ma dhibaysa oo kala soo kalsoonay way maanta waa soo diyaarsaday hada khudbada jumcaha lagu qoray waxa la yiri khudbada jumcaha gaalada bari ku qoran haye ma iska imaan lahaydeen macallinkan ma iska imaan lahayd khudbada jumcaha wali waa inaad kor ka akhrisaa waxay ku keenaysaa inaad soo diyaariso kadibna si fiican u soo barato waqti badan geliso ninba wuxuu arkay Soomaalka hadal wuxuu yiri khudba wuxuu ka hadlay fagaara ka hadalka iyo fagaara ka naxida anagoo qaadayna tababar baa waxa la yiri maalinta khamiis weey bari jumcaha ku qoran tahay khudbo haba ima diyaarsane waa ku qoran tahay adeeg ku taala dadku ku sugay barito wali ninka meesha joogo wuxuu yiri midna waa kala talinaya wax warqadaha soo qaadan wax warqada hadaad warqad soo qaadato waliga warqad uma hayso doontaa ugu waliga warqad ba dhigi doontid waa diyaarsaday warqadan ku diyaarsaday waxayga dhan warqadan koran ka soo qabto waa soo qaybayada dhanba meeshaan imid maalintaas saan u bilaabay wax warqada kama akhriyo yiri laakiin hadaan warqad maalintii ku bilaabi lahaa warqad uma hayn lahaa kalsooni u qaba marka adoo khudbad jumcaha akhrinaya ama meel ka khudbeynaya qodobadana aysan ku diyaarsanayn khalqala ku galaya macallinka galaaska waxa fadhiya arday maadada aad u yaqaana maadada tarbiya dhigta laakiin waa yaqaana aabihiisa sheekha caalim ah waa loo akhriyay waxaan dhanba madaahibtii kala yaqaana ardada galaaska macallimiintu way isu sheegeen war galaaska waxa ku jira macallin yar iska ilaaliya waa la isu sheegay qaar waxay dhaheenba macallin kamida wallahi ninkaas sida u qaban lahaa waa la ahay baan ee seel la yeelaa وانا ازدياريا وانا سيدمين ardayga wax weydiinay macallin xisaabaad jooga meeshan geometry dhigaya goob ardada baray iyo waqooyiga iyo jihooyinka iyo ardayga gacanta xisada ku jirta waxyaalaha qaar kood ma soo fiirin qasab kullu ma soo fiirin karnaa ma soo fiirin karo laba su'aal barkii degdeg lagu weydiiyay laba su'aal إلا واحد كهلا سا لول دقيه واحد كهلا سا تتيتكي خطوط الطول والعرض واحد كهلا سا وتي سجراني واحد سيا حمر ماشي كنت علي لندن مكة واحد كهلا سا أرجع عنها معنا وحن كويدينيا تايم كواحد لو حسابه أما وقت حل واحد لو حسابه
tirada caadiga toban aan ku xisaabnaa. toban marka la gaaro way buuxsantaa. maxay saacaduhu marka ay 60 gaaraan u buuxsamaan oo 60 loogu xiray 60 iyo 1 ma jirtee 60 xagga la mariyay 1 mid cusub waaye. tirada tirsiimada caadiga toban weey. tirsiimada waqtiga iyo zamankuna waa 60 maxaa lagu saleeyay 60 ka maalinka juqraafiga la weydiiyay ama xisaabta dhigay waa inaad ku xisaabtay wixii 60 lagu deesgareeyay ila 59 sakana daqiiqada buuxsantay saacada buuxsantay mid kale bilaamaysa 60 casharkaas ma soo fiirin mid kale gacantaage waxa macaan la yaabanahay masaajidan maalin ku tukanay imaamku meesha ku aadan yahay waxa la dhahay waa mihraabki waa qibladii sab masaajidku waa dheer yahay saf dheer weey safkaas aad u dheer inta imaamka ku aadan kaliya salaadooda jirta inta kale waxa waaye qiblada ma haystaan be xariiq dheer weey qiblada soo hal meel maaha kuwa kala banaanka yihiin qiblada arinta fahamsi adna gooba saa wareejinaysi hada waxyaalaha qaarkood ay noo diyaarsaneen waa taan dhehayna ardada waa iska eriyayna waa ku xanaaqayna waa maalinkaas wax soo diyaarsada waa taan dhehayna waa inaan cilmi dheeraada leenahay anaga oo ka duwan kii ardada oo waxaas aan inta ka fakarno maxaa inta wax ka iman karaan markaas kalsooni aan leedahay ka jawaab karno su'aalaha saddex kama jawaabayo idinka ka jawaabi doona ardada markay idin weydiiyaan ka jawaab saasoma ma hada ka jawaabna maya idinka yiri midda hadda mihraab ku saabsan taas waa iska fududahay midda oo ku saabsan waxa ila tahay marka xajka la joogo dadka dhan waa ku wareegsan yihiin soo wareegsan marka la joogo hadda wax kala ma wareegi un baan soo gaaray annagana wareegi dheeraa markuu wareegu dheeraadana saf straight line oo ekaana xariiq toosan wareegaas wareegsan mid kamid aan nahay laakiin markuu wareegu dheeraado saf wuxuu ekaanaya marka waxa laga yaabaa dhibic ka yar inaan ka mid nahayba Soomaaliya dhanba dhibic ka yar marka leenka wuxuu noo ekaana inay toosan tan kalena idinka waa arday maalinka doona ku weydiiyay maanta macalimiinta juqraafiga Allah hayay intay qoraxda ka soo baxda intay u dhacda dayaxa waa kana waxa aan la weydiiyay gacanta taagan macalin bishii dhaweed ee Ramadaan markaan fiirinay galbeed bay ka soo baxday halkan ka raadinay galbeed dadka dhawda waa taa bishii dhalatay macalin bil baa galbeed ka dhalata waa adigina dhihi jiray bari ka dhalatay say bil galbeed uga dhalatay bila inta soo baxday misalan noqotaya macquul maaha ee nafahamsi waana dhul adag ku taaganta waana waxa ku diyaarsan yihiin hadii kale haye galaaska banaanka macna ga dhaaf banaanka bisha taale bisha ay raacine galaaska iska jooga ma banaanka tahay bisha Ramadaan bishi Shawaal baa dhalatay wata idi bishi waa dhalatay hadana way dhacday oo macallin bishaan aqal badana saa inta u soo baxda misana noqonaysa Ramadaan mubaarak Eid mubaarak hadana iska dhacaysa maalinka laga rabaa juqraafiga dhigay yama waxa ku saabsan time-ka iyo ka dhigay zamanka in uu diyaarsantaa laga rabaa maalinka xisaabta waa laga rabaa sida qaybtiisa su'aalaha lagu weydiin karaa naga dhaaf waxaas yajab qomane adigta ardaykum macallin waa ku ahsan noo samee waxa qoman noo dhiko aan qomaneyn naga daa yajab aan qomaneyn naga daayay أنا ماشي هقولني واحد قمنا لا برا واحد قمنا نقدر معلم سدح لقول فت واب فهمية سدح إبر لقول فت عن ربع تابسي سدح إبر لقول فت مثال السي سدح أفر لقول فت واب قرتي وسدح صلاة ومن أفر ركعة وقرتي وسدح كرسي أو من أفر لقوضة لكن معلم واحد كهرباء سدح لقول فت إبر تابسي ما هلك تعلق magaalada iga tus shay aan taaban karo inaan isku dhufashada wax la xafido ma aha ileene ardayga inaan xafido uga talagalay intaabsi macallin saddex eber lagu dhufto فأنا تابسي كرنا مرة سوق تجينا أن تابسي كرنا مركي ويرتها هذا أول سمبوس وش يجي استرا سدح سمبوسة أو من سدح جيسة وسقال هذا غير كنا سدح برقة أو من مياه جيسة إيش يجا جيس مليهين ما سدح قراءة أو من مياه جيسة جيس مليهين أنا اللي جربها
markaan leenahay macallinku ana wax dheeriya akhriyaa wax dheeriya bartaa waxaas waa in meel buug arday kuma yaalaan kalsoonida waa dhaga dhumaysa markaas xiisa gelinta iyo ardada inta casharkaaga ardada kor u saka maalinka saxba ugu darsamay ardayeen tusaalooyinkaas oo dhan maada kasta waa laga rabaa sheekhi la sheegay kitaabka akhrinayay eray dhihnun ay ku dhigtay dhihnun ku dhigtay waxay tahay dhihnun marka dib wuxuu yiri dhihnun daga baafuulay ardada iska qaatay dhihnun inta daga baafuulay laakiin daga baafuulay asaga ka tabaqan tahay Soomaaliyaas marka waxaan la weydiiyay dagab naga saaran yihiin anaga laga rabaa dagab qaad ka qaad